بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعندا وضيال ميل كسو أجوكتان كسو دوادا مقبهيها دلجر ميديا فيسبوك يوتيوب كبا وحنا نكون عصرنا أنا يوتيوب سبسكرايب سارتان فيسبوك أنا لايك يفولو يسوق ترتان مقال كنا وحنا نكتب بننا ما نكون عصرنا أنا تيشة كرسان هذا ضم عشانتين magacaygu waa maxamed xasan maxamuud oo tadeere waxaan ahay wariye Soomaaliyeed waxaan hadii Allah awood u leeyahay idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliya iyo gobolka waqooyi bari dalkan Kenya iyo guud ahaan dalkan Kenya maadaama ay Soomaali fara badan degan tahay oo ganacsiga ku haystaan deegaanka ku leeyihiin wararka ugu muhiimsan aan idinka soo gudbin doonaa hadii Allah awood u galaado warka maanta oo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay 15 bisha 3 sanadda 2021 qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn warka maanta Soomaalida iyo waxa uu yahay dacwadii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysay oo dabcan furmatay dhageysigeedii kana furmatay magaalada The Hague ee dalka Netherlands ama Holland hadba qofka sidoo u yaqaano dacwadu waxay ku furmatay Kenya oo ka baaqsatay oo dabcan booskii Kenya lagu talagalay uu banaana ama haawanayay Soomaalida waxa wafdigaasi ama dadka ugu qayb galay horkacayay ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar dabcan khudbad hordhaca oo aad u fiicneed oo dabcan aad soo jiidatay garsoorayaashii maxkamadda ayuu jeediyay kadibna wuxuu ku wareejiyay mid kamid ah looyarada Soomaaliya metelayay lawyer-kaasi dabcan wuxuu isdul taagay qodobo dhowr ah oo uu qodobeyay keeska waxa uu ka bilaabay in maxkamaddu awood u leedahay in keeska uu yahay kees ay Soomaaliya xaq leedahay Kenya ay ku xadgudbeyso waa sida hadalka uu dhigay lawyer-kaasi hadalka ugu hadalhaynta badan maanta lawyer-kaasi uu sheegay ayaa waxa uu ahaa dabcan baraha bulshada aad u haysta waxa uu yiri hadii la yiraahdo hal erey ku qeex maqnaashada Kenya waxaan ku qeexi karaa buu yiri rajal aan hadii la yiraahdo laba qodob ku qeexna wuxuu yiri waxaan ku qeexi karaa go'aan rajal aan ama gabi ahaan rajal aan marka waa ka soo gudubtay oo lawyer kale ay gudubtay dabcan muddo socon doonta maxkamadani sida muuqatana Soomaaliya rajo badan ayay leedahay oo sida hadda ay ku bilaabatay dhageysigu dabcan go'aanada bari iyo saad dambe iyo bisha dambe ma soo bixi doonaan oo go'aanka ugu dambeeyay waqti uu qaadan doona waxa loo gudbi doonaa dabcan maxkamaddu waxa ay dhageysiga markuu dhamaado waxa loo gudbi doonaa wajiga labaad oo inay qaadiyadu isku laabtaan ay falanqeeyaan wixii ay dhageysteen iyo cadeymiye la horgeeyay waxa sidoo kale suurtagal ah in ay diraan khubaro maxaa la yiraahdaa cilmi baaris ku sameeysa oo tagta goobihii falku ka dhicin ama goobta la isku haysto oo maxaa la yiraahdaa xuduud badeedka ah waxa sidoo kale dhici karta in waraqa ama codsi kale loo soo diro Kenya maxkamaddu soo dirto ay tiraahdo dabcan eedeyntan la idin soo jeediyay jawaab baa la idin ka sugayaa oo dabcan codsi kale maxkamaddu ay ku celiso dhanka Kenya waa hadii ay dhacdo hadii ay dhici weyso dabcan ilaa 3-4 bilood ugu badan 5 bilood baa laga yaabaa in go'aanku ku soo baxo oo go'aanka ugu dambeeyay maxkamaddu ay ku soo saarto waa ka warsugi doona halka ay saldhigato balse qodobka ugu weyn maanta ayaa kaas ah dabcan wararka Soomaalida aad bay u tira badan yihiin waxaan isku dayeynaa inaan hadba idin soo gudbino qodobka ugu muhiimsan ama warka ugu muhiimsan ee quseeya bulshada Soomaalida meel walba ay joogto waxaan naga xaaraan in idin soo gudbino ama halkan ku soo gudbino hees waxaan naga xaaraan inaan soo gudbino warbeena waxaan naga xaaraan sidoo kale inaan idin soo gudbino dumar qaaqaawan hadii aysan markaasi ahayn wax warka ku saabsan ama markaasi qof muhiim ah oo hadashay waxa soo kale naga xaaraan inaan idin soo gudbino waxa loo yaqaan reaction-ka ama qof heesay reaction laga bixiyo ama maxaa la yiraahdaa qof hadlay oo reaction laga bixiyo iyadana waa naga xaaraan aniga iyo howlwadeennada guud ee Daljir Media hadii noqon lahayd Facebook hadii noqon lahayd YouTube-ka ama Instagram-ka intaba waa naga mamnuuc inaan idin soo gudbino wararka noocaas ama waxyaabaha noocaas waxaan isku dayi doonaa inaan mar walba dhexaad ahaano wararkeenu xaqiiqada ku saleysnaadaan dhinacyo badan ka fiirino baaritaano badan ku sameeyno hadii Allah awood u ogolaado waxa sidoo kale aan rabnaa inaan halkan ka cadeeyo anigoo gudoomiyaha Daljir Media dabcan mucaaradna ma nihin muxaafidna ma nihin waxaana xaqiiqa raadisyaal bulshada ku xiran ama nagu taxana diyaar waxaan inaan u soo gudbino wararka xaqiiqada ku saleysan oo maxaa la yiraahdaa aan soo turxaan bixinay baaritaano ku sameeynay
wararkaasu waxay ku saabsanaan karaan waxay ka dhici karaan Soomaaliya waxay ka dhici karaan Kenya waxay ka dhici karaan Ethiopia iyo caalamka intiisa kale maadaama Soomaalidu meel walba ay degan tahay oo caalamka intiisa badan ay degan tahay wadamada ugu badan ama wadan kasta waxa la dhici karaa 90% adduunka Soomaalidu ay ka degan tahay wadanka ugu shisheeya oo tagtid kama weynaysi Soomaali oo ay degan tahay haddii Allah uu digo qodobadaas dul markaa ayaanu ugu talagalnay caawa inaan idinla wadaagno wixii ku soo kordha iyo wixii warar ahaba dib aan kala wadaagi doonaa haddii Allah uu digo aad baa u mahadsantihiin